السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبيال كسو دوادا وربحين قارا وانوغا هادلي دونو إكران تهليل oo maalmihii ugu dambeeyay misabrihii ugu dambeeyay baan dhahay ilaa la sanaa 26 June iyadoo ku sugneed goobteeda shaqo waatuma Ikran yaa si afduubtay yaa si dilay ayaad ku daawan doontaan muuqaalkayga caawa kusoo dhawaada saaxiibeel haddii aad tahay markii kugu horreysay aad daawanaysid channelka waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saartid like share comment waxay noo tahay dhiirigelin waanaad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani Ikran تهليل أو مدة بدن لو بلود للصناعة أي حل أي كسر جناد مجالنا المقدسة جار أهان حرمته يأجرك حرمته إنه السجد يسردان كقرنك أي الشيء إن لقى أفضل تهلكاسي هاي أدنى بالسجد يسردان كقرنك أو بهسي شلي أي وحلوس شيء إن إكران بارتان أيكو هي إنكيس كذا أيكو قاعدين إن أيدلن أورك على الشباب إكران waxay bishii August ee sanadkii 1996 ku dhalatay magaalada Muqdisho waxayna ka mid tahay dhalinyarada dibadda wax ku soo bartay kadibna dalka dib ugu soo laabtay waxayna khibrad muddo u lahayd shaqooyinka xafiiska dawladda iyo laamaha amniga gabadhan ayaa in ka badan 5 sano ka hor ku soo biirtay hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliyeed ee magaceeda loo soo gaabiyay NISA iyadoo ahayd madaxii amniga ee internetka ee hay'addaasi markii ugu horeysay NISA ay ku soo biirtay waxay ahayd 2017 sida uu sheegay taliyihii hore ee nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe kadib waxay ku bilowday xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ay noqotay xafiiskiisa agaasimka qaybta nabadgelyada xogaha kadib ayay waxay Soomaaliya ka baxday Ikran inkastoo mar kale dib ugu soo laabatay sida ay sheegtay hooyadeed waxayna sheegtay in ay ka baxday ay u aaday dalka Ingiriiska aqoon kororsi ay u aaday halkaasi sidee loo afduubtay inta badan wararka la isla dhaxmaraya waxay sheegayeen in Ikran la afduubtay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn cidda afduubatay marka laga reebay eedeymo loo soo jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo laamaha amniga gabadhan hooyadeed oo lagu magacaabo Qaali Maxamed Guhaad ayaa sheegtay in gabadheeda iyada oo joogto guri u dhow xarunta nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka la soo wacay kadibna gaari lagu kaxaystay waa sida hadalka ay u dhigtay guriga ay ku sugneed gabadhan ayaa wuxuu ku yaalay agagaarkan xarunta nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka goob aad amnigeeda loo adkeeyay oo ah meeshaasi Qaali Maxamuud oo wadanka Turkiga u timid si gabadheeda u raadiso ayaa shir jaraa'id warbaahinta ugu qabatay magaalada Muqdisho waxayna ka codsatay in dawladda federaalka Soomaaliya laga caawiyo sidii gabadheeda ugu heli lahayd sidoo kale nabadoono ka soo jeeda beesha gabadhani ayaa sheegeen in ay aad uga xun yihiin gabadhani oo aynan wali ilaa hadda aysan ka helin war rasmi oo ka soo baxa dawladda federaalka Soomaaliya ayna ku eedeeyeen in dawladda federaalka Soomaaliya ka gaabisay gabadhani oo u shaqeynaysa hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka saaxiibayaal maanta sidoo kale waxa war saxaafadeed ay soo saareen mise warbaahinta ay la wadaageen qaybta internetka ee website-kooda oo ku hadla afka al-shabaab ayaa waxa lagu sheegay in ururka al-shabaab ay beeniyeen in ay ka dambeeyeen afduubkii iyo dilkii loo geystay Ikran Tahliil oo xalay hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ay sheegeen in ay ka dambeeyeen ama ay afduubteen gabadhaasi ayna dileen sidaas sida muuqato ururka al-shabaab ayaa marar badan waxa ay afduub iyo dilba u geysan jireen laamaha amniga dadka u shaqeeyay dhamaan dawladda shaqaalaheeda ay dili jireen walow ay sheegan jireen balse arintan ayaa aad la yaab ku noqotay bulshada Soomaaliyeed iyadoo aan wada ognahay in gabadhani ay ahayd gabar nabadgelyada sirdoonka qaranka u shaqeyso qoraalkani bayaankani ka soo baxay ururka al-shabaab ayaa lagu sheegay in ay gabadha ay wax ay ka dambeeyeen dilka loo geystay qoraalkan ayaa lagu baahiyay warbaahinta al-shabaab ay ku leeyihiin qaybta website-ka waxay sidaan ay hadalka u dhigeen ururka al-shabaab warqad ay soo saareen kama dambeeyeen waxmana kama ogin dilka loo geystay iyo afduubka Ikran Tahliil la yaab ayay nagu noqotay sida dadka bulshada Soomaaliyeed ay la yaabka u noqotay ayaa lagu yiri qoraalka hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ayaa xalay war saxaafadeed soo saartay waxay ku shaacisay in Ikran ay magaalada Dhoble deegaan u dhow lagu dilay halkaasi oo ururka al-shabaab ay u afduubteen sidoo kale maanta waxa warbaahinta la hadlay gabadha Ikran ee dadeed oo sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya aysan ku qancin warka ka soo baxay aysan la soo socodsiinin inta aysan baahinin oo ay ka arkeen warbaahinta warkaasi sidoo kale gabadha hooyada ayaa idaacada VOA-da iyo BBC-da maanta u warantay ayaa waxay sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya ay tuhun weyn ku qabto
ayna ka dambeeyeen iyaga dilkooda sida hadalka u dhigataba sidoo kale waxay codsatay in laamaha amniga gaar ahaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble in uu baaritaan iyo il gaar ah ku fiiriyo kiiska gabadha sidoo kale waxa ay sheegeen in gabadhooda aysan ilaa iyo hadda aysan aaminsaneen in ay ka dambeeyeen ururka al-shabaab inay dileen maadaama gabadhani ay goob aad loo ilaaliyo ay ku sugnayd markii afduubka mise markii ugu wardambeysaba gabadhina ayaa la waayay 26 June oo ahayd maalmihii dabaaldega toddobaadka xurriyadda ee Soomaaliya ay xornimada qaadatay arinta la yaabka ayaa waxay tahay in xilligan ay ku soo beegmatay iyada oo dawladda federaalka Soomaaliya ay shalay shaacisay in gabadha ay afduubteen dilna ay u geysteen baaritaan kadib ay ogaadeen in ururka al-shabaab ay afduubteen oo ay dileen sidoo kale sidaan horeba idinku sheegay ururka al-shabaab ayaa bari iska yeelay oo waxayna ku eedeeyeen in ay ka dambeeyeen ay dhaheen annagana waxba kama ogin gabadhaasi dilkeeda sidoo kale waxa ay sheegeen in ay markii ay dad dilaan mise mas'uuliyiin ka tirsan dawladda mise hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya markii ay dilayaan in ay isla markiiba sheegtaan arinta la yaab kale ayaa waxay tahay gabadhani waxay ku soo beegmaysaa xilli 2 bilood kadib ay gabadhina arinteeda soo shacbaxdo iyada oo maalmihii ugu dambeeyay iyo bilooyinkii ugu dambeeyaba qoyska iyo odayaasha dhaqanka iyo gabadhani ka soo jeedo ay dawladda federaalka Soomaaliya cadaadis gaar ah ay saareen si gabadhooda meel lagu sheegay nolol iyo geeri dawladda federaalka Soomaaliya sidaan hore idinku sheegaba waxa ay sheegtay in ururka al-shabaab ay ka dambeeyeen dilkaasi saaxiibayaal arintani ayaa waxa ay noqonaysaa mid hadalhayn xoogan Soomaaliya iyo guud ahaan baraha bulshada bal isla wadeegayo oo la leeyahay gabadhani qaabka loo afduubtay iyo halka ay ku sugan tahay xilligan iyo dilka la sheegay in ay u geysteen ururka al-shabaabna ay bari iska yeeshay ayaa arin cajiib ah ku noqotay bulshada Soomaaliyeed run ahaantii sidoo kale gabadha hooyada ayaa waxay sheegtay in ay faahfaahin dheeri ah kaga fadhido dawladda federaalka Soomaaliya ayna faahfaahiso qaabka gabadheeda meesha laga afduubtay iyo sida loo afduubtay iyo dadka ka dambeeyay iyo xilliga ugu dambeysay iyadoo sheegtay in ay aaday xarunta shirkadda Hormuud ayna ka codsatay in baaritaan gaar ah lagu sameeyo koolashii mise wicitaanadii ugu dambeeyay gabadha markii ugu dambeysay 26 June ee sanadkan 2 bilood ka hor ahayd saaxiibayaal arinta cajiibka ah oo kale waxay tahay in gabadhani 2 bilood kadib la soo sheego in la dilay iyadoo aan wada ognahay maalmihii iyo bilooyinkii ugu dambeeyay in la raadinayo gabadhani saaxiibayaal waan kaga mahadcelinaa daawashada muuqaalkani arintani gabadha Ikraan oo ka tirsan hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka wixii faahfaahin dheeri ah oo ka soo baxo wararkaasi waxaan idin kala wadaagi doonaa barnaamijyadeena dambe waan kaga mahadcelinaa muuqaalkan inaad daawatid waxaan ka codsanaynaa mar walba aad dhiirigelin inoo tihiin inaad noo share gareysiin subscribe noo saartiin like share comment waad kaga mahadcelinaa daawashada muuqaalkani tan iyo kulantideena barnaamijkan xiga waxaan idin kaga tagayaa sidaas nabadgelyo salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh